munaasabadan lagu dooranayay gudoomiyaha cusub degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo ku xigeenadiisa ayaa waxa ka soo qayb galay wasiiro uu kamid ahaa wasiirka arrimaha gudaha dawlad goboleedka Hirshabeelle gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe madaxweyne ku xigeenka dawlad goboleedka Hirshabeelle mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya iyo tan dawlad goboleedka Hirshabeelle marti sharaf kale tartanka doorashada gudoomiyaha degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ku tartamayay laba musharax Axmed Xuseen Axmed Shiidka oo ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Warshiiq iyo Xasan Maxamed Axmed waxaana lagu guuleystay 17 cod wuxuuna gudoomiyihii hore Axmed Shiidka uu helay 4 cod sidaasi ayaa waxa gudoomiyaha cusub degmada Warshiiq loo doortay oo ku guuleystay xilka gudoomiyenimada degmada Warshiiq Xasan Maxamed Axmed gudoomiyihii hore degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Xuseen Axmed Shiidka ayaa aqbalay natiijada tartanka doorashada wuxuuna ugu hambalyeeyay gudoomiyaha cusub inuu xilka alla la garab galo sidoo kale gudoomiyaha cusub ee degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe Xasan Maxamed Axmed ayaa sheegay in uu ka shaqayn doono horumarka degmada iyo arrimaha amniga qorsheena koowaad wuxuu yahay oo degmada ugu qorsheysan arrimaha amniga saddex ku saarnaa muhiimadda koowaad waa amni hadaalihina nolol ma jirto wadana isku xirto iyo Muqdisho iyo Warshiiq 65 kilomitir waxay u baahan tahay amni waayo tuulooyinka simaado colaado fara badan ka jiraan waxaan ka shaqeynaa sida amnigeeda iyo horukaceeda aan ka wada shaqeynayno agaasimaha waaxda dawladda hoose Yaxya Cumar Xirsi iyo gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Axmed Muxiidiin Shaata ana howlwadeenka doorashada ayaa ka hadlay muhiimadda doorashadan ay u leedahay shacabka ku nool degmada Warshiiq oo lagu soo gudbiyay qodobaynta 5 degmo ay ka mid tahay degmada Warshiiq maantana aan nasiib yeelanay inay noqoto degmadii ugu horeysay dowladda Hirshabeelle taas waxay ku dhacday nasiibka Ilaahay uu siiyay degmada isku duubnida amniga mudnaanta koowaad waa access wax liya socodka amniga dhawaanshaha ee u dhowdahay magaalada dalka Soomaaliya Muqdisho waa bilowgii in dadka Soomaaliyeed ay bilowdaan dimuqraadiyad ay ku dooranayaan dowladooda iyo maamulkooda iyo waxa inay dadka hogaaminayo sidii ay ugu bixi lahaayeen dhibka iyo xasilooni darada marka waxaan leeyahay waa wax taariikh ah gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Mayre Makaraan iyo wasiirka arrimaha gudaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa ka warbixiyay howlaha doorashada iyo guusha laga gaaray waxa in ugu wanaagsan inay bulshada wixii maamul lahay ama sidii soo maamul lahayd ama maamul la yiraahdo waa shayga ugu wanaagsan oo maartay bulshada laga taageero laakiin in lagu yiraahdo badran ku siiha iyo xaqunaysa waxa cuntaan ku keenay la yiraahdo waxba ma tirayso wax sharafay leedana male maamulka maanta inta naga qayb qaadatay oo aad ku bixisay maartay nooc kasta ay juhdiga ku bixisay oo uga mahad celinayna waxaan u soconayna waxay ahaaday golaha deegaanka iyadoo degmo ku dhiira karta golaha deegaanaan isaa aysan jirin halkaan waxaan uga dhawaaqnaa annaga inaan degmada ugu horeysa ka dhisayno golihii deegaanka ee noqon doonto degmada Warshiiq madaxweyne ku xigeenka maamulka dawlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa kula dardaarmay gudoomiyaha cusub in uu dardargeliyo horumarka degmada Warshiiq gudoonkii hore ee talada sii hayay la shaqeeya ragga cusub albaab waliba maaragtay maslaxada dadkan iyo deegaankan ku jirto inaad tustiina la idinka rabaa inaadan maaragtay mas'uuliyadda idin saaran waxaad ka mid tihiin golihii deegaanka waxaad ka mid tihiin dadkii deegaanka u dhashay Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho